السلام عليكم. mataqaanaa sababta ay u soomaan muslimiintu sagaalka beri u horeysa bisha Dhulxijja waayo waxaa dhacay arrimo muhiim ah. Intaan u gudagelin fadlan channelka waa channelkaadii subscribe iyo like ha inaga hilmaan. Maalinka koowaad waa maalinka laga toobad aqbalay Nabiyullaahi Aadam. Maalinka labaad waa maalinka ducada laga aqbalay Nabiyullaahi Zakariya. Maalinka saddexaadna waa maalinka ducada laga aqbalay Nabiyullaahi Yunus. Maalinka afaraadna waxaa dhashay Nabiyullaahi Ciisa. Maalinka shanaadna waxaa dhashay Nabiyullaahi Muusa. maalinka lixaadna waxaa abwaabul khayri loo furay Nabiyullaahi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. maalinka toddobaad waxaa la xiri jahannama albaabadeeda idil hal albaab laga tegi maayo ilaa 10 bir ay ka dhamaanayso way xirnaanayaan. maalinka sideedaadna waa yawmu tarbiya waa maalinka xujaydu ay bidaansani oo ay u caraabayso mino markay ka tagayaan markay aadayaan mino halkaas ay barayaan. maalinka sagaalaadna waa yawmu carafa waa yawmu carafa xujayduna ay tagantahay carafo nabigana uu yiraahday alxajju carafa annagana aan soomanahay dadka xujayda ahayn soomkaasina lagu dhaafay sanad maadiya wa sanad mustaqbala sanad tagay iyo sanad soo socda qofka sooma maalinkaasi. maalinka tobnaadna waa yawmul xajji al-akbar yawmun nahri yawmun ciidul adha yawmul udhiya. tobanka beri adduunka ugu khayr badan aan kaga faa'iidsano quraan akhris istighfaar adkaar sadaqa sawm tawba aan kaga faa'iidsano waa toban maalin oo muhiim ah yaysan ciyaar si fudud kugu dhaafin.